Soomaaliya dal dayacay mustaqbalkiisa iyo inkasta oo lagu sheego in 75% ay yihiin dhalinyaro dadkiisu haddana waxaa lagu tilmaamaa dal dayacay mustaqbalka iyo sidoo kale jiilka soo aadan 2026 Soomaaliya waxay u dabaaldegaysaa 66 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gumaystihii Talyaaniga Ingiriiska ay ka qaadatay xornimadeeda waxaana midowgay labada gobol 66 sano kadib laga dhaxlayaa wax ka liita wixii ay heleen jiilkii dahabiga ahaa ee maalintaas la kulmay xornimadii 1960kii marka aad dib u milacsato waxyaabihii maalintaas dhacay waxay ahaayeen waxyaabo qurux badan jiilkii maalintaasi dhaxlay waxa ay markaasi heleen waxyaabo ka duwan waxa haatan ka taagan Soomaaliya labada gobol ee waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya waa laba gobol oo lagu tiriyay inay yihiin kuwa haatan dhaxlaya xaalado ka duwan wixii la filayay 66 sano ka hor 1960kii dadku ma ahayn kuwa marka u dhaqmaya sida maanta xaalku yahay waxay ahaayeen dad walaalo ah oo isjecel sidoo kalena isku soo jiita midabka Soomaalinimada iskana dugsada markaasi maadaama ay ahaayeen dadkii la noolaa cadaawadda iyo sidoo kale dhibaatooyinkii ay ka dhaxleen gumaystayaashii Ingiriiska iyo sidoo kale Talyaaniga ee gacanta ku hayay gobolada koonfureed iyo sidoo kale waqooyiga Soomaaliya arrimahaasi oo dhan waxay ahaayeen kuwii soo dedejiyay midnimadii 1 Luulyo oo maalmo qurux ay naga xigaan 1 Luulyo 2026 66 sano kadib midnimadii waxay kala taalaa meel aan kala fogeyn oo dhinacyadu waxay u egyihiin kuwa kala tagi kara haddana sidoo kale dhanka kale isugu soo dhawaan kara waa mid marka laga ambaqaado siyaasiyiinta iyo sidoo kale xoogweynta siyaasaddu waxay yihiin kuwa aad moodo inay shaxda iyo sidoo kale jartaba ku dul ciyaarayaan jiilka mustaqbalkooda uu lumayo 66 sano kadib marka laga ambaqaado talaabooyinka iyo sidoo kale waxyaabahaasi isdiidan nolosha iyo sidoo kale dadaalka dhalinyaradu wuxuu yahay mid markasta ay ku soo dhamaanaya meel aan wanaagsanayn dhalinyaradu waxay u qaybsameen dhowr qofood oo kala duwan marka aad eegto qaarkood waxay la soo jaan qaadeen qorshe ballaaran iyo sidoo kale waxyaabo badan waxay heleen dadaalo iyo sidoo kale qorshe wanaagsan intii u dhaxaysay sanadihii 1960kii ilaa iyo sanadkii 1991kii markaasi oo Soomaaliya ay wajahday qaranjabkii iyo sidoo kale dhibaatooyinkii ku dhacay waxyaabahaasi oo dhan waxay sahleen xaalado kala duwan iyo sidoo kale waxyaabo quusa Soomaaliya maalintaasi waxay dhaxashay dhibaatooyin aan wanaagsanayn laakiin jiilkaasi waxay ahaayeen jiilkii ku soo koray barbaarin dawlad ka naxaysa waxay heleen waxbarasho iyo sidoo kale waxyaabo walba oo tayo sare leh dadaal walbana wuxuu ahaa mid ay iyagu hogaaminayeen maadaama ay ahaayeen ubixii dalka si walba ha ahaatee 1991kii wixii ka dambeeyay 36 sano kadib Soomaaliya haatan jiilkeedu wuxuu dhaxlayaa laba arrimood oo kaliya waa inaad la soo jaan qaadaa markaasi waxbarasho iyo sidoo kale dhibaatooyin adiga ku kali ah ma jirto dawlad ka taageeraysa ama sidoo kale cid kugu garab siinaysa dhacdooyinkaas iyo sidoo kale waxyaabo kale marka aad waxbarashada soo dhamayso waxaadan meel ku ogeyn mustaqbalkaaga iyo sidoo kale waxyaabihii aad qaban lahayd waxa kaliya oo ku sii furan waa laba talaabo oo kaliya waa inaad naftaada biimayso aadaada qaaradda Yurub ama sidoo kale dalalka kale ee Aasiya si aad u hesho nolol ka duwan mid aad kaga tagaysa dalkaaga hooyo ee Soomaaliya laakiin midda kale ee kala ku furan waa mid noloshaada qatar gelin karta waa inaad qoriga ama sidoo kale bastoolada qaadataa oo aad ku biirtaa ciidamada ammaanka halkaasna aad ka dhacsataa bariiskaaga laakiin wixii intaasi dhaafsiisan waa mid ay adag tahay inaad ka jawaabto waxa aad noqon karto sanad walba daraasiin askar ah ayaa ka soo baxa xeryooyinka kala duwan waa dhalinyaro dhammaantood waxay yihiin mustaqbal ifaya waxaana muuqata in aysan ogeyn mustaqbalka iyo sidoo kale darajooyinka ay xiranayaan waxaa kaloo jira in daraasiin kale ay ka soo baxaan dhanka kale ee jaamacadaha iyo sidoo kale iskuulaadka waa mustaqbal bilaaw ah laakiin haddana aan la hubin halka uu ku sii dhammaanayo dhalinyaradu markii ay jaamacadaha soo dhameeyaan waxay soo istaagaan bannaanka iyaga oo doonaya mustaqbal iyo sidoo kale nolol wanaagsan inay helaan waalidiinta la daalaa dhacaya dadaaladaas iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran marna meel kuma oga inay ilmahooda mustaqbal u heli karaan kumanaanka arday ee sanad walba ka soo qalin jabinaya jaamacadaha ma oga waxyaabaha ay qaban karaan haba ugu darnaadaan dumarku waxay la kulmaan tacadiyo iyo sidoo kale dhibaatooyin gaar ah kuwaasi oo aan la soo koobi karin intii qaadatay nidaamka ama sidoo kale qorshaha inay qaataan qoriga oo ay dagaalamaan ama sidoo kale ay ka mid noqdaan askarta waxay noqdeen kuwa helay fursad gaar ah laakiin kuwa kale waxay sanado badan hadda ay sugayaan inay ku shaqeeyaan volunteer ama si bilaasha markaas kadibna ay noqdaan kuwa noloshooda waxyaabo badan ka dhaxla xaaladahaas isjiitamaya iyo sidoo kale waxyaabaha isdiidan
waa kuwo u muuqda mustaqbalka Soomaali ama sidoo kale jiilka Soomaaliyeed oo 66 sano kadib dhaxlaya waxaan qurux badnayn. Xaaladaha isdiidan iyo sidoo kale waxyaabahaasi oo dhan jiilka maanta waxa ay la nool yihiin kaliya laba qorsho. Qorshaha koowaad oo ah inaad tahay askari u shaqeynaya qaranka ama sidoo kale inaad tahay qof banaanka taagan oo mustaqbalkiisa iyo sidoo kale shaqadiisa aan meel ku ogeyn. Qaar ka mid ah dhalinyarada marka aad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan inay soo mareen sanado badan kuwaasi oo ay shaqo la'aan ahaayeen, dadaal badanna ay ku bixin lahaayeen sidii ay ku wadi lahaayeen qorshahooda. Laakiin hadda marka aad eegto 66 sano kadib dadaalka iyo sidoo kale qorshaha ballaaran Soomaalidii heshiisay 1960kii hadda waxay ku kala tageen nidaamka qabaliga. Qarankii waxaa bedelay qabiilka, sidoo kalena waxaa yimid astaamo iyo sidoo kale waxyaabo badan. Cid walbaahi waxay goosatay meel gaar ah, waxaana muuqata qorshe aan ballaarnayn. Soomaaliya waxaa ka farcamay maamullo, mid walbana waxa uu degan yahay meel gaara. Bal dul istaag 18 May waa maalin u astaysan Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. 1991kii ayay ku dhawaaqday inay ka tagtay Soomaaliya inteeda kale. Waa gobolladii waqooyi, waa dadkii lagu tilmaami jiray inay ahaayeen Soomaaliya kuwa lafdhabar u ah dadaallo iyo sidoo kale waxyaabo badan oo iyagu ay tabanayaan. Ugu dambeyn waxay ku noqdeen kuwa ku baxay. Dhanka kale imow 1 Agoosto sanad walba waxaa loo dabaaldegaa aasaaskii maamulka Puntland 1998. Dadaaladaasi waxay ahaayeen kuwo si weyn isu soo tarayay, laakiin waxyaabaha ku hoos gudban ayaa waxay yihiin kuwo ku muujinaya xaalado aan qurux badnayn. Marka aad dul istaagto maamulada Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed, ayaguna waa kuwo maalmo gaargaar qaatay, waxaana dhammaantood ay muujinayaan in ay dadaalka iyo sidoo kale qorshaha ballaaran ee cawaala uu lahaa ay hoos u dhigeen. Waxaa kuu muuqanaya maanta dhalinyaradu inay yihiin kuwo u kala sacbatumaya siyaasiyiin iyo sidoo kale dad aan mustaqbalkooda iyo sidoo kale dadaalkooda aan meel ku ogeyn. Waxaana muuqata qorshe kasta ee ayagu ay leeyihiin inuusan maanta meel lagu sheegin. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin mustaqbal wanaagsan, haddana 66 sano kadib waxa ay dhaxlayaan cidina kama turjumi karto. Hogaamiye kasta oo dalka yimaado waxa uu u sheegaa dhalinyaradu inay yihiin jiilka iyo sidoo kale mustaqbalka beri. Laakiin marka aad ka amba qaado dhanka kale, Liibiya maanta waxaa ku xiran ama ku sugan dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah. Badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga waxaa ku naf waayay kumanaan dhalinyaro ah tan iyo markii uu bilowday qulqulka iyo sidoo kale tahriibka Soomaalidu ay kaga baxayeen Soomaaliya sanadkii 2006. Markaasi oo dalku uu la daaladhacayay dhibaatooyin, waxaa bilowday furahaasi, waxaana muuqatay inaan cidna ka ceshanaynin. Waxaa hadda markaasi magafayaashu ay ka sameeyaan lacago waali ah, kuwaasi oo dhibaatooyin badan laga dhaxlo. Dhanka kale halkani waa Algeria iyo sidoo kale Morocco. Halkani waa Algeria iyo sidoo kale badda isku xirta dalkaasi Spain. Sanad walba waxaa ku geeriyooda dhalinyaro Soomaali ah, cidina meel kuma sheegto. Dadka ugu badan ee tahriibayaasha ayaa la yiri waxa ay ka tagaan maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waxaana hadda muuqata 66 sano kadib dadkii u dabaaldegayay xornimadooda iyo sidoo kale dadaalkooda inaysan jiilkooda meelna waxba ugu sheegin. Siyaasiyiintu sanad walba waa kuwo is haysta, iyaguna naftooda kaliya u dagaalamaya. Dhinacyadu waa iska soo horjeedaan, jiilka mustaqbalkana meel laguma oga.